wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdinaasir ayaa maanta galinkii dambe si rasmi ah uga daafuray magaalada Hargeysa koobka kubadda cagta ee ay dheelayaan warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa. Ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliland kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay ciyaaridda kubadda cagtu. ujeedada koobkani daaran yahay haddaan wasiir ka faahfaahino dhammaan warbaahintii Soomaaliland ka baxday ilaa marka laga soo bilaabo turcadusada ilaa inankii ugu dambeeyay ayax ee sawirqaadaha ay boorma ku geeriyooday aydax afwan hadal halmaan kuma jiro waxay ka badan yihiin ilaa dhowr ilaa 10 qof run ahaantii reerihii iyo ehelkii qoyskii qarankii Soomaaliland ay ka wada baxeen mar kale waxaan leeyahay samariyiman مسؤوليتي نقلص وقيب قليل نقلص شقيا أرنتنا وأنا ما هذا نقينا وعسنا نصيب دراه إن أوركي ورباهين تمدح حبنا نكواب ترسني صالشة أي تهل كروايين مركي حمنا كمدا ورباهين تيو سحل ساريني كوب كا لغوح الصيو أيو جيان اللي جرمانتي يو كلا قيب قاتان أي وحبك كيني كروايين وحوتو هجانكي صالشة وكوفش المين وكانه وهذا العدو أفعل كوري أنا وأرنتها وحبين كلام قبل كرو عمر شافي إياه إن تيم كيسة هوش سوق بنقابي إن ساعات وسير معها إن كوب لقبتها أما بإن ترتل لقبتها هولير معها حتى أنا هوش أصلا عيدنا كتاجرين أيها هالكاس سوق كارسيين آد يعني دي كم هالنا قيا إن أرن كاسون سلاي دي صورة شقة ده هيدو جرام ويدو دي دكو جراتين وميدان دي كم هالنا قيو waxaa jira niman ku jira xarunta baarista dambiyada ee CID da oo iyaguna muddo dhaafay nimankaasina in la xasuusnaado oo ayaan iyadana ku dar lahaa tirada intii dhimatay Allah u naxariisato inta noolna waxaan oran lahaa akhlaaqda iyo idaabta iyo hanaanka iyo wadaninimada iyo difaaca warbaahintu leedahay dhamaantii baahay naga muuqato waxaan yaran nasiib darro ah oo aan inkastoo aan jeclayn inaan halkan ka xuso haddana in la xuso mudan munaasabada wada arkaysan cid ka maqan ururkii mataliyay saxaafadda Soomaaliland ee la dhisay waqti adag waaya adag ka soo gudbay marxalad adag ka soo saaray in maanta kuwii dhisay uu u hiilin waayo oo uu la garab joog waayo taageerada iyo xusuusta u baahan yihiin in ay maxaan ku raday helaan geesta kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ee UCID agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland xildhibaan dayib oo ka tirsan guurtida Soomaaliland kuwaas oo dhammaantoodba si isku mid ah ugu bogaadiyay warbaahinta isku duursanaanta ay leeyihiin gabagabadii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed oo madashaasi ka hadlay ayaa Bulsho TV iyo qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliland ku bogaadiyay doorka ay ka qaataan dhiirigelinta ciyaaraha xilqaamay inay qabtaan xafladan oo ay ku xusayaan saaxiibadood oo hore u geeriyooday waxaanu leenahay qolada dhimatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saasa loo wada dhimanaya inta kalena waa ka dambaysaa halkan wax kale anigu idinka sheegi maayo maanta laba waxaan baan ka sheegayaa horta marka aad suxufiyiintiina tihiin xafladda qabanaysaan oo xaflad waliba ay tahay xaflad loo qabanayo dad dhintay lagu xusaayo halka wax badan la iskama yiraahdo wax badan oo anagu idin oran lahaana imika idin oran maayo sababtu waxa weeyaan munaasabada baan ogolayn in la isku yara dhex jiito Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.